السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حماد إسكال الله سبحانه وتعالى إنه أقول هذا إن أنا لما مرحلة كواد أنكو برنينا التعارف وحنا وجود بدونا مرحلة ضلبات وأنكو بردونا الحوار بين العائلة هاتن وحد كسر دواتن درسي الشنات دروستي أنكو برنيني كهذلك أفكار بيت طاوشوا عن. يا أحمد، لقيت اليوم مدير مدرستك وأخبرني عن أشياء أنكرتك وأشياء قد جعلتني سعيدة. ما الخطب يا ولدي؟ حواركان wuxuu dhex maray aabe iyo wiilkiis. aabihii ayaa bilaa wuxuu yidhi axmedu laqiitu lyawma maanta waxaan la kulmay mudiiru madrasatika maamulka iskuulkaaga ayaan la kulmay wa akhbaranii wuxuuna ii sheegay can ashyaa arrimo ankartuka aan kugu inkiray. wuxuu igaa kaa sheegay arrimo aan kugu inkiray iyo wa ashyaa arrimo qad jacalatnii iga dhigtay saciidan inaan kugu farxo mid faraxsan iga dhigay. mal khadbu yaa waladi wiilkaygu maxaa jiro? يا أبي، عرفت الأشياء التي أسعدتك، وما الأشياء التي أنكرتني بها؟ wiilkii wuxuu yidhi yaa abi caraftu alashyaa yaa abi aabow caraftu waan ogaaday waan gartay alashyaa allatii ascadadka arrimaha adiga ku farxad geli waa un aqoonteeda unbaa lagaa soo sheekeeyey. haddaba wama alashyaa arrimaha maxay yihiin allatii ankartanii biha aad igu inkirtay? يا ولدي، إن للفتوة زلات كثيرة، إياك والتساهل عن الكلمات التي تنطق بها. abi wuxuu yidhi yaa waladii wiilkaygiyo ina lilfutuwa dhalinyarnimada zallaatun kathiira simbiraxsho tiro badan ayay leedahay. waa hafawaadkeeda badan qaladkeeda badan. iyaaka waxaan kaaga digayaa watasaahul adiga iyo fududaysi inaad wax fududaysato can ilkalimaat allatii tandiqu biha kalimaadka aad ku hadlayso inaad fududaysato ayaan kaaga digayaa. saas ayuu يا أبت، أخذت النصيحة، ولكن أخبرني ماذا اتهم المدير علي؟ wiilku wuxuu yidhi yaa abati aabow akhadtu nasiixa waan qaatay nasiixadaada walaakin hase yeeshee akhbirnii ii sheeg maadaa ittahama almudiiru calay waxa uu igu tuhmayo maamuluhu. maadaa maxeeba ittahama uu igu tuhmay almudiiru maamulaha calaya aniga? سمعت منه اليوم وهو يمدحك كثيرا، إلى أن قد فاجأني ولدك له عيب واحد، ولو تركها لكان أفضل الطلاب في المدرسة علما وأخلاقا. wuxuu yidhi marka samictu minhu maamulkan waxaan ka maqlay alyowma maanta wahuwa yamdaxuka asagoo ku ammaanayo kathiiran in badan ilaa an qad faaja'anii ilaa uu yacni igu kadiyo waladuka wiilkaaga lahu caybun waaxidun hal ceeb ayuu leeyahay walow tarakahaa hadduu ka tegi lahay ceebtaasna lakaana wuxuu ahaa lahaa afdala tulaabi ardada midka ugu fadliga badan fi lmadrasati iskuulka cilman wa akhlaaqan cilmi ahaan iyo aadaab ahaan akhlaaq ahaanba. ما هي تلك العيب يا أبت؟ wiilka wuxuu weydiiyey marka maa hiya tilka alcayb maxay tahay ceebtaas yaa abati aabow? هي التحرش بالفتيات. ماذا دفعك يا ولدي؟ adigoo u sheegay hiya taxarushu bilfatayaat wuxuu yidhi waa faduulinta iyo foodeynta. faduulin ataxarush waa in gabdhaha la foodeeyo loo wacwaca. marka wuxuu yidhi hiya taxarush waa foodeynta iyo faduulinta bilfatayaati gabdhaha la faduuliyo. maadaa dafacaka haddaba maxaa kugu riixa yaa waladii wiilkeedu waxaas maxaa kugu riixa oo yacni aa u samaynaya? القضية ليست كذلك يا أبي، بل يسعدنا جمال ولدك. markaas wuxuu yidhi alqadiyatu arrintu laysat kadaalika saad maqasha ma aha saas ma aha yaa abi aabow bal iska daa yuscijna jamaalu waladika waxaa dhibay gabdhahaas yuscijna waxaa dhibayo jamaalu waladika wiilkaaga quruxdiisaa dhibay kola qurux intee tahay. ألا تسمع يا ولدي قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. aabihii markaasuu naseexo u galay iyo gabayo markaasuu yidhi alaa tasmac yaa waladi miyaadan maqlin wiilkaygiiow qowla caliyi bni abi aalib cali bn abi aalib qowlkiisii hadalkiisii miyaadan maqlin miya radia allahu canhu laysa aljamaalu biathwaabin tusayinunaa laysa aljamaalu quruxdu ma aha biathwaabin marooyin tusayinunaa ina qurxinayo
ina aljamaala quruxdu jamaalu lcilmi waaladabi, cilmigii aadaabta quruxdii buy. intaasaa quruxa, ama quruxdu aswaab iyo wax laysku qurxiya maaha. نعم يا أبت. markaas wuxuu yidhi nacam yaa abati, aabba waan maqlay. أنصحك يا ولدي ألا تشتم الفتيات بل ارحمهن، حتى وإن شتمتك فتاة فلا تجب لها، هذه هي الرجولة الحقيقية. marka abi wuxuu yidhi ansaxuka, waxaan kugula talinayaa yaa waladii wiilkaygiiow, allaa tashtuma in aadan caynin alfatayaat gabdhaha caynin, bal irxamhunna iskaga naxariiso, u naxariiso, xataa wain shatamadka haddii ay ku cayso fataatun gabar, falaa tujib lahaa ha u jawaabin, haadihi tanina hiya arujuulatu alxaqiiqiya, waa ragnimada dhabta ah. nin oo gabdhaha la tirsanaa maraba saasuu yidhi. دب خادرا يا أبي، ولقد أخذت نصيحتك وسوف أكون محظوظا ما دام أنك أبي وصديقي، أدام الله بقاءك يا أبي. marka wiilku wuxuu yidhi dib khaatiran, niyo ahaan wanaagsanow, yaa abati aabow, walaqad akhadtu nasiixataka nasiixadaadii waan qaatay, wasawfa akuunu waxaana ahaan doonaa maxduudan mid nasiib leh, maadaama annaka abi inta aad ugu aabbahay tahay nasiibaan le yidhi, wasadiiqii haddana misna saaxiibkay aad tahay, adaama allah allaha daa'im yeelo jirsiiya, baqaa'aka jiritaankaaga, allaha daa'im yeelo jiritaankaaga yaa abi aabow. نعم الولد أنت يا بطلي، كن شامخا ورحيما دائما. aabbihi ammaanuu kusoo gabagabay, nicma alwaladu wiil ayaa nicmo lahaa, anta adiga almakhsuusu bilmadxi anta saawi. marka nicma alwaladu wiil ayaa nicmo lahaaday, anta adiga yaa badali geesigaygiyow, kun ahaw shaamiqan mid taagan, waraxiiman naxariis badan, daa'iman had iyo jeer. intaas ayuu darsigii shanaad ku eg yahay. waxaan idinka raali gelinayaa in maalmahan mashquul badan isoo fuulay, dhib male, waa isbuuciiba 2 darsi 1 darsi ayaan soo geli doonaa insha Allah. adinkana waxaan idinka codsanayaa in aad dadka sii gaarsiisaan, haddii aad wax ka faa'iiday walaalkaa ka xasidin, maxaa yeelay waxaan ognahay luqadda carabiga in maanta lacag lagu barto, waxaan ognahay daraasadan oo kale in fari lagu bixin, laakiin adiga waxaan kugu talagalay in yacni waxa weeyaan diinta fahankeeda kaa kaalmayso. waxaana ka xisaabsanaa Allah subxaanahu wa tacaala agtiisa, ayaan ka xisaabsanaa ajar. adigana walaalkaa ka xasdin, si sadaqa oo kugu noqdo walaalkaa gaarsii. leegta haddaa ka heshana leegta nagu kaalmay, maxaa yeelay leegtu muuqaalka inuu faafo ayay ka kaalmaynaysaa. marka leegtaa ka baqiilin, mahadsanid. waxaan idinkaga tegayaa inta muuqaalka xig aan ku kulmayno. salaamullaahi calaykum ورحمته وبركاته.